بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay bishu tahay 25 Juun 2018 waxaa golaha wakiiladu ahaa fadhigii saddexaad ee golaha wakiilada fadhiga saddexaad oo maanta waxa isku raaceen inay meel mariyaan 12 qodob sidii aan u soo diyaarinay bayna u qaateen inay tahay sida rasmiga ah oo lagu kala hormariyay oo uu ku socon doono waxaan noo bilaamayaa markaa insha Allah berito inaanu bilowno qaybtii hadhay oo ugu horeyso warbixinta gudiyada joogtada maadaama muddo dheer hadda fasax la ahaa gudiga joogtada ayaa shaqada sii haya isaga ayaa inta fasax la yahay mas'uuliyadda wixii xeerara iyo wixii dabagala shaqadeeda leh marka 10 gudi weeyaan 10ka gudi ayaa ku xigaya gudi walbi wixii uu ka soo ururiyay muddada fasax ahayd iyo xeerarkii ay sida ku meel gaarka u siyaasiyeen sidaas ayay hawshii noogu dhamaatay idinkana dadweynaha waxaan rajaynaynaa inaad nagala socon doontaan marar badan saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh